kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa aayaha channel ku soo dhawaada warbixin xiise leh haddii aad channelkan ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar haddaad ka mid tahayna asxaabtii hore inoola joogay oo aad ku mahadsan tahay la joogistaada maanta warbixinta aan idii hayo waa warbixin aad u xiiso badan daanyeer ayaa taleefankayga iga qaaday oo isku soo sawiray kadibna dib iigu soo tuuray ama dib iigu soo celiyey waa shay kale wiil u dhashay dalka Malaysia ayaa sheegay in taleefankiisa gacanka maalmo uu ka maqnaa uu ku arkay sawirada iyo muuqaallo daanyeero uusan ogeyn cidda qaaday muuqaalkaasi ama duubtay muuqaal ka mid ahaa kuwa lagu duubay taleefanka wiilkani oo maalmo ka maqnaa ayaa muujinaya daanyeer isku dayaya in uu cuno taleefanka arrintaas oo si weyn looga baahiyay baraha bulshada ee ay ku xiriirto kadib markii ninka lagu magacaabo Sakhireddaz Rodzi uu soo dhigay bartiisa Twitterka wiilkani ayaa ah arday ayaa sheegay in markii hore uu mooday in uu isaga u hurdo taleefankiisii laga xaday balse weli ma cadda sida dhabta ah ee taleefankiisa uu ugu lumay sidoo kale ma cadda cidda daanyeerkaasi ka duubtay muuqaalkana ka qaaday iyo sawirrada wiilkani waa 20 jir ayaa BBC-da u sheegay in abbaarihii 11kii subaxnimo maalin Sabti ah markii uu hurdada ka soo toosay in uu ogaaday in taleefankiisii gacanka ah uu ka maqan yahay ma jirin wax muujinaya in gurigiisii loo soo dhacay waxa kaliya maskaxdeeda ku soo dhacday in uu ahaa arrintani arrin sixir ah oo taleefankaygiiba la iga indhasaabay ayuu yidhi ardaygan ayaa dhigta fasalka ugu dambeeya ee cilmiga kombiyuutarka dhowr saacadood kadib muuqaal lala wadaagay BBC-da ayaa muujinaya in daanyeer isku dayaya in uu cuno taleefanka muuqaalka laga dhex arkayay daanyeerka oo kaamirada taleefanka hoos u fiirinaya oo dhabarkiisuna ay ka muuqdaan caleemo iyo shanqar fara badan oo shimbiro ah waxaa sidoo kale taleefanka lagu arkay sawirro tiro badan oo daanyeero ah iyo geedo caleemo kala duwan oo taleefanka uu duubay xilligii daanyeerku uu ka xaday taleefanka isaga uu ku falaadayana ayuu iska qaaday sawirradaasi wiilkani ayaa waxa uu sheegay in ilaa ay galabnimadii axadda uu weysnaa taleefankiisii sidoo kalena uu waayey meel uu u raaco balse markii dambe aabbihii ayaa arkay daanyeer taagan bannaanka gurigooda odaygii ayaa taleefanka wacay waxaana taleefanka durbadiiba dhawaqiisa laga maqlay qayb ka dambaysa guriga oo kaymo ah iyo caleemo fara badan halkaasina waxaa laga soo helay taleefankii uu isagu aad ugu dheelay sidoo kalena dhiiqadaasi uu dhex geliyey daanyeerkii adeerkii ayaa kula kaftamay oo suurtagal yidhi waxaa laga yaabaa taleefankaaga markii aad hesho in laga helo sawirka tuuggii taleefanka kaa xaday halka uu ula jeedo in uun taleefanka qofkii xaday uu isku sawiri doono balse hadalkiisii ayaa ka furmay oo waxaa laga helay sawirro fara badan oo daanyeero ah ardaygan ayaa BBC-da u sheegay in inkastoo meelaha kale ee adduunka ee daanyeertu ay ku nooshahay magaalooyinka gudahooda iyo agagaarkoodaba ay ka dhacdo arrinta noocani oo kale ah daanyeertuna waxa ay yihiin xayawaanaadka keliya ee xariifka ku ah sida wax loo dafo ama loo xado sidaasi oo ay tahayna waxa uu sheegay in hore aysan halkan ugu dhicin in daanyeer wax uu ka xado ama dhibaato uu ka geysto dadka xaafadda la deggan wiilkani waxa uu tuhunsan yahay daanyeerka inuu ka soo galay daaqadda qolka jiifka oo walaalkiis xilligaasi uu furay waa wax aad arki kartid hal mar qarnigiiba ayuu ku soo qoray bartiisa Twitterka oo ula jeedo dhacdooyinka ceynkani oo kale ah waa kuwa dhif iyo naadira ka dhaca daafaha caalamka ma ahan markii ugu horreysay ee sawirro daanyeer iska qaaday ay qabsadaan baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinada caalamka sanadkii 2017 dacwad u dhaxaysay sawirqaaday Ingiriis u dhashay iyo hay'adda u dooda xuquuqda duurjoogta ayaa la xaliyay kadib markii 2 sano oo la isku haystay sawir uu qaaday daanyeer sanadkii 2011 daanyeer lagu magacaabo Naruto oo ku noolaa hawdka dalka Indonesia ayaa dafay kaamiro uu lahaa nin lagu magacaabo David Slater oo kadibna waxa uu iska qaaday dhowr sawirrood oo kala duwan Mr David ayaa ku doodayay in uu isagu leeyahay lahaanshiyaha xuquuqda sawirradaasi oo internetka aad loogu baahiyay balse hay'adda u dooda xuquuqda duurjoogta oo lagu magacaabo Beta ayaa sheegtay in ay qasab tahay in daanyeerkani sawirradani qaaday uu ka faa'iideysto dhaqaalaha Mr David uu ka helay sawirradaasi maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa markii dambe Mr David u xukuntay in xuquuqda lahaanshiyaha sawirradaasi sidaasina
daaqadda ay ugu tuurtay dacwaddii hay-adda beta ay ku haysatay, master david ayaa oggolaaday in 25 boqolkiiba dakhligii ka soo galay sawirradaasi uu siiyo hay-adda dhaqaalaysan daanyeerkaasi iyo kuwo kale oo ku nool kaymaha dalkaasi Indonesia. haddaba sheekadan tan ugu dambaysa ayaaba ah midda ugu xiisaha badan, in daanyeer kaamiradaadii kaa dafay, sawirro qaldanna iska soo qaaday, hay-adna ay kugu qabsato, maxkamadna ay kugu soo saarto. adduunka heerkaas ayuu marayaa. innaguna Soomaali haddii aan nahay, bini'aadamkii ayaa xuquuqdiisii weli aanan helin. aad baan ugu xumahay. warbixintaa inta ayaan ku soo koobayaa. sidaa iyo nabadgelyo.